inta kalena ayagana meeladkoodii baktigoodii meesha ay hadda meesha yaalaa maantana ilaahay wuxuu noo suur geliyey buundadii sagiidii caanool iyo tuuladii sagiidii labadii caanool iyo sagiidii inaan kala wareegno hadda kole miina baari wax baan ka wadnaa markaan seef ka wada dhignan insha Allah shacabka waa guryahooda si xornimo u maadona hadda la yiraahdo wallahi alxamdulillah maalmahan waa qoladii qabaariid waa taan dagaal kula jirnay maalmahan oo dhan oo hadda tuulo kala wareegeynay alxamdulillah maantana ilaahay wuxuu noo suur geliyey buundadii sagiidii caanool iyo tuuladii sagiidii labadii caanool iyo sagiidii inaan kala wareegno واتهاي مادام الشباب أي جرد بوندوين كاسي بل سده وصورة كشي عيدن كدولة الصومالية إنه نبريق عن ديغانا داسي والله الحمد لله باستراتيجية وتشي بدن كدب الحمد لله وأنا صورة قلي إن سيدي عانو ولا بريقنا واتها بل قصاري دمشي دابع محنو شيكتا والله الحمد لله وخسارة وحمانتا وبورن وعلى حقينا مجرى دعوائي رفضود موية انت كلنا ايغان meeladkoodii baktigoodii meesha ay hadda meesha yaala marka alxamdulillah hadda gacantan ku haynaa caanool miswiid waata marka ma jira dawladda gacan ka siiga dagaalkaasi wala alxamdulillah waxaan nabar dagaalamayo ciidamada adnis noocyadooda isku jira iyo anaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawista koonfur galbeed inta buu isgarabsanayaan waata marka deegaanka aad la wareegteen jawiga guud deegaanka sidoo ahaa shacabkana maxay dareemaan wala alxamdulillah meesha wax shacab ay kuma nooleen shacabku waa ay soo barakadeen ay biyooda si awood ay soo xirsadeen insha Allah saacadani wixii ka dambeeyay waxaan rajaynaynaa shacabka deegaanadaas inay si nabadgelyo ay ku soo laabtaan hadda kale miina baari wax baan ka wadnaa markaan seef ka wada dhignan insha Allah shacabka waa guryahooda si xornimo u maadona hadda la yiraahdo waatay gudoomiye inta badan waxaa la dhahaa ciidanka dawladda Soomaaliya goobihii ay qabsadaan waa iskaga baxaan bal qorshiin muxuu yahay taas dhacaymayso markaan dagaalkan waa naga go'an yahay in gobolkan shabeellada hoose dibigiisa in gacanta dawladda Soomaaliyeed uu soo galo oo laga dulqaado qabaariista baadi iyo cadawtinimada iyo xaasnimada ummadda Soomaaliyeed ay ku hayaan inta in laga dulqaado waata kooxii al-shabaab oo goobta ka saartay xilligan halkee ku sugan yihiin wallahi firdadkooda hadda xasaacada iyo dhulkaas laga sii sheegaa waana ku raad joognaa واتاي قرشين محوية والله قرشين وحوية أمد الصومالية مساكين كان بيرلي بيقول شغلنا بهوسة وهاي كتير سيين كان كبيرها من درجة ذي هو هذي بيبوبير شو ذي سينما تكلي إنه كبير كانوا تيجانا وسينما تكلي أي كجورنا قرشين وياه واتا ودنبان فرنت أودرس الجودان شعب كارل سبيد يلبى الدولة الحياة الصومالية والله الحمد لله شعب كارل سبيد يعانوا على حانوا هم بلينا يا إن تيجانا ذي في مانت في حرنما nimankii hore loo bixiyay in guriyahooda insha Allah ay ku soo laabtaan oo beerahooda dib u beerashadii ay bilaabaan waraalka xisab ilka xisab way loo yar amala bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeyso waxaan rabaa halkaan inaan uga hambaliyeeyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ka socda dawladda Uganda runtii maanta gacanta ku dhigay kana sifeeyay deegaanka Sabiidi Caanool ee degmada Afgooye kooxda qawaariijta oo muddooyinkii hadda ugu dambeeyay ummadda reer koonfur galbeed ee gobolka Shabeellaha Hoose nawaaxigaas ku dhibaateynayay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo guud ahaan geesiyaasha maamulka iyo shacabka halkaas ku nool oo runtii si wada jir ah isaga dulqaaday qawaariijtan arxan laawayaasha ah dadka u diiday nolosha iyo jiritaanka suurad xumeeyay dhaqankii wanaagsanaa ee diinteena islaamka iyo dalkan Soomaaliyeed oo runtii ah dal ay ku nool yihiin dad muslimiin ah oo sunni ah oo la yaqaano oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacabka ku nool nawaaxigaas si guud ahaana inay garab istaagaan ciidanka la shaqeeyaan maamulka annaga haddaan nahay maamulka gobolka oo hormuudka ah howlgaladan ka socda gobolka guud ahaana waxaan ballan qaadaynaa in geedaha hoostooda iyo meel walbaba aan u tegi doono aan la howlgali doono ciidamada qaranka ilaa qawaariijta aan ka sifeeyno gobolkan guud ahaan haddii alla idmo sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan baaq u diro shacabka ku nool gobolkan Shabeellaha Hoose
qaybooda kala duwan, hadday haween yihiin, hadday dhalinyaro yihiin, hadday odayaal yihiin. Ogaada dalkiinnii waxaa jooga ka dagaalamaya nolol idin diidan, horumar idin diidan, caafimaad idin diidan, koox khawaariij ah oo weligeedan ay soo jirtay oo keliya taqaana in layska celiya mooyaane aan barya walaalnimo, ehelnimo, dhaqan, luqad iyo midib midna aanan fiirinaynin, keliya dhaqankooda uu yahay inay runtii inaad iska dhicisid oo aad iska dulqaadid mooyaane aan si kale kaaga tegayn. dhiiggaaga xalaashanaya, diintii suurad xumaynaya, dalkii baabi'inaya. sidaas darteed waxaan rabaa gobolkan dadka ku nool, haddii aad arday tahay, haddii aad oday tahay, haddii aad haween tahay, haddii aad ganacsado tahay, haddii aad baawurey tahay oo darowalaa tahay, waxaa laydinka rabaa inaan u soo jeesano in kooxdan khawaariijta ah markaan aan iska dulqaadno. xal kale ma lahan. dalkan horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay oo wax walba ay kaga xiran yihiin nimankan inaan iska dulqaadno. maamulka idinku hogaaminayo, meel walbaan idinla tegaynaa, waa idinkaga horeynaa insha allahu tacaala. idinkan waxaan rabnaa in aad u istaagtaan difaaca dalkiina iyo deegaankiina, ciidamada qarankana aad garab siisaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.